السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتياشي قيمها يقايا لو وحامانتا شبكة أوضة سيسيلة صحريري أحمد عبد الحسين أحمد ساكن وكسوغا ودك سويدن iyo علي موسى وسوغنا nin waxgarad oo ku sugan gobolka ahaaye kana labadooda ka soo jeedaan gobolka Sool ayaan intii dawladda ka dhacaysay shaqaaqada u dhaxaysa beelaha walaalaha halkaas degan labada mudane maanta halkan ka hadli doona waxay ka bixin doonaan taageero ay ku taageerayaan baaqidii ka soo baxay nabadeynta ay ka soo baxay waxgaradka iyo garaadada labada beelood iyo iyagoo fikirkooda ka dhiibanaya colaada halkaas ka taagan iyo waxa ay salka ku hayso maxaana iminka ku bilaabaya Axmed Saakin may maqashaa si wanaagsan baan ku maqlayaa waana ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu adiga iyo dhegeystayaashaba waa ku salaamayaa insha allahu tacaala waxaan ku bilaabayaa taageero aan taageersanahay baaqii kasoo yeedhay garaadka guud gobolada SSC ama garaadka guud ee dhulbahante garaad jaamac garaad cali iyo garaad cali buraale oo isaguna baan ka soo saaray magaalada Laascaanood labada garaad iyo dadkii kale ee waxgaradka ahaa ee ku raacsanaaba waxaan ku taageerayaa baaqii nabadeed ee ay beelaha walaalaha usoo jeediyeen aniga oo ka codsanaya weliba in la qaato baaqa iyo ereyadii qiimaha lahaa ee ay soo jeediyeen isimadu. kelmadda labaad waxaan leeyahay erga fara badan oo iska soo xilqaantay daafaha gobolada SSC ama deegaanka dhulbahante oo isimo iyo cuqaad iyo waxgarad kalaba ka kooban oo iyaguna garaadka iyo garaad jaamacna u tegay deegaankana soo gaaray wax ka dhaceen beelaha walaalaha ee khayr cabdi iyo maxamed garaad ama bahar same ergadaa dhulbahante waxaan farayaa hal kelmada baan odhan lahaa inay ka faa'iidaystaan. ergadaas waa ergadii deegaanka u dhalatay, waa dadkii isimada u ahaa, waa dadkii xuqaasha u ahaa, waa dadkii haajada ka codsanaya inay iyaguna hawshooda ku adkaystaan oo aan loo gacan dhaafin, cidna aanay ka ogolaanin inay u gacan dhaafto. dadyowga gacmaynaya sida maamulka Hargeysa oo kale oo isticmaalaya beelaha dhulbahante qaar ka mid ah dirinta iyagaa horiyey, iyagaan ku eedaynayna, iyagaa rasaasa isugu dhiibay, iyagaa eedkii hore lahaa, iyagaa dharkayn ciidanka amar qaata dhigay oo beesha khayr cabdi ay ka quusteen ciidankaa inay qaadaan, dhulbahantana ka quustay oo markhaati madoon ahayd cidda xabadda riday ee laysay ergadii 340 halaad bixinaysay ee laysay kuwa soo cadhceliyey gabdho laga qabo oo kuwa laynaya ay walaalahood qabaan u soo cadhceliyey oo magaalada iyagoo ka bunti furan oo guryahoodii nabad u fadhiya xabad lala dhacay. cidda ka dambaysay shirqoolka intaa la eg maamulka Hargeysa weeye. waxaa hotel Xamdi jooga oo Laascaanood ku yaala erga salaadiin iyo odayaal oo Hargeysa ka timi oo leh waxbaanu nabadaynaynaa. iyaga waxaan baaq ugu jeedinayaa wadan islaamaad tihiin, bil Ramadaan baad ku jirtaan, maamulkiinu shirqool buu ka wadaa koonfurta gobolka Sool. haddaad waxna taraysaan annagu isimo iyo odayaal nagu filan oo nabadeeya waa haysanaaye war ciidankiina naga qabsada aardasheen ee wiilashiina. niman culimaa baa ku jira oo tafsiir jiray. waxaan idin xusuusinayaa aayaddii qur-aanka ahayd walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum annaar wamaa lakum min naasiriin. war haddaad dulmi taageertaan aakhiraad ku dhib mudanaysaan. waxaa lagu tootargaraynayaa oo lagu khasbayaa labada beelood ee walaalaha inay xaajada gacanta u geliyaan maamulka Hargeysa iyo odayaashiisa, iyadoo maamulkii odayaashii meesha u dhashay joogaan oo ay ku filan yihiin xaajadooda ayaa laga faramaroojinaya. haddaad waxna taraysaan isimada Hargeysa ka yimiyow maamulkiinu dulmiga uu meesha ka wado qabta kaasaa hil noo ahayd. waxaan leeyahay xuqaashii baa la xidhxidhay hawsha iska lahayd
ee wax ka qaban lahayd burcay ku xidhan yihiin markii odayaasha iyo isimada dhulbaante garajaana u tageen ee beelaha dhex mareenna markay nabadayntii bilaabeen shirqool baa la dhigay ka dhacay magaalada laascaanood. kaas wuxuu ahaa Axmed Saakin oo jooga waddanka Sweden. iminkana waxaa isna khadka inoogu jira saan hore idinku sheegay cali muuse oo isna ah wax kale ka soo jeeda deegaanada shaqaaqadu ka dhacday gobolka Sool oo isaguna halkan baaq taageeraha ka dara iyo wixii uu raacsanayo. cali muuse waad maqlaysaa Soomaa? si wanaagsan baan ku maqlayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا بعد أول تسجيل وعن مركز الرئيسة عن تعتيد تيرانية ودريا جراد أبشر سالع محمد حريتي جنا الله كرو رابيو وعن وتعتيني جريدا نحيبة ترى كتبي ومدة كوابتي ستا خاتوم استيد ama sool iyo saragii cayn ama dhulbaantaba aan idhaahdo ayaan uga taxsiinayaa gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii u ka dhashay samid iyo iimaan allah ka siiyo allahna ka wada siiyo isla naxariisana allah ka waraabiyo. markaan ka gudbo waxaan taageerayaa sida uu abwaankii iga horreeyeyba uu sheegay baaqii ka soo baxay labada garaadka guud gobolada SSC Sooriya Sanaag iyo Cayn ama beesha dhulbaante garaad jaamac garaad cali garaad jaamac iyo garaad cali buraale baaqii ka soo yeelay ee nabadda ahaa baan taageeraynaa oo aan soo dhawaynayaa. aadna waxaan u jeclahay in loo dhiga nuglaado labada beelood ee isdilaya ama waa laba beelood oo hal qoys ah oo abti iyo inadeer iyo inabti miidhan ah oo la isku dilayo oo aysan iyagu laga dhigtay daabkii midideeda ninka kale uu daabka hayay weeye. dhibaatada waxaa ka mas-uul ah reerkii Soomaaliyaba iyadoo qaran ah fitika xarraa ku noqday ee fitika u qaaday ee xasuuqa baahsan ka geystay gobolada waqooyi ummadii kula nooleed markay qabsadeen oo ciidamadii iyo dawladdii Soomaaliya ay halkaa ka baxday. xasuuqa ay ka geysteen waa kaa lafihiisa ay marna banaanka soo dhigayaan marna ciidda ku rogayaan. nina walaalkii iyo aabihii marna banaanka ma keeneen maydkiisa iyo lafihiisa kuma rideen. waa ummadii Soomaaliyeed halka ay ku xasuuqeen oo ku gumaadeen. gumaadkaasi ilaa reerkaasi maalintuu meeshaa qabsaday ama maamulka horjoogayaasha samaystay ee magacowday xasuuqa Soomaaliya ku jiray wuu soo duulay gobolada Sooriya Sanaag iyo Cayn buu ku soo duulay. waxaana duulaankaasi waa duulaan isinkii iyo kii maamulka horjoogaha u ahaa iyo kii wadaadka ahaa iyo kii xildhibaanka ahaa lagu tashaday qadiyad fog oo ummadda gobolladaa degta in la gumaado la xasuuqo dalkeeda iyo deegaankeedana la wareego. maanta waxaa laygaga faa'iidashaday dagaalkii ka dhacay Qoril iyagaa ka dambeeyey ee labada beelood walaahi ay isku dileen. kan maanta iyagaa ka dambeeya dab aysan shidin meesha lagama shidin. kan maanta waxa weeye kuwa rasaasta isugu dhiibaya wayaga waxayna ka faa'iidaysteen oo aan leeyahay faal ay tamaaf lagama dhowro. beesha cabdi garaad waa beel ay wada dhasheen beesha maxamed garaad oo isla dhasheen oo isdhaleen oo isku qoyseen. waxaa laga faa'iidaystay iyaga war waxaa laydinka faa'iidaystay idinka beesha cabdi garaadow nabad baa laydinku ninkii fitigu ka bilowday ninkii waqdariye ku laayeen waa dadka xasuuqa badan ummadda u geystay. shaarka tuutaha Somaliland ama Isaaq ugu geliyey weeye ninkaasi ninka 140 halaad oo aan weligii laga xukumin waddanka aanan ka maqal nin baa magtiisa laga xukumay baan laga soo qaaday baarsan way u gurguuratay nabadda. xaqiiqda weeye markaan sidaa leedahay nabad baan doonayaa xumaan dooni maayo waa loo gurguurtay 120 halaad baa 140 halaad baa laga bixiyey. waa cadal dariiq uu ahaa kii dadka laayay waa kii halkaa u fadhiistay waa in dadka la isku dilo. nabadda baarasame idina baqa ilaahayna uu ogyahay
baarasamana way ogtahay ummadda soomaaliyeedna way ogtahay dhulbaantoo dhanna wuu ogyahay inay baarasame markaa nabad gurgurasho ahayd colaada cabdigaraadna aysan doonayn aysanna gelin oo aan la geyn 340 hawaad baa halkaa lagu wareejiyey kadibna ergadii baa lagu soo qaaday weerar oo kobkii lagu gumaaday iyada oo mishinka ujeedadu ay ahayd in garaadka guud ee beelaha dhulbaante kobtaa lagu dilo uu shirqoolku ahaa kiibaa maantana markuu dhixisoobay la wadaayoo kobtii laga wadaa qayaad isma dilayno qayaad isma dilayne meesha fitinka ku jira xasuuqana wada inta dhimatay inta dhaawacana mas-uul ka ah waa beeshaa isaaq ciidankeeda iyo iyada iyo dadkeeda taa halkaasaan leenahay waxaan leenahay ninka madaxa soo guurtay maanta ee isinka ah ee soo diray ciidanka wax gumaadaya ee wax xasuuqaya ee laascaanood xaaraanta ku haysta ii garsoori maayo maanta waxaa garsoorka iskale labada beelood dhulbahantaa leh hadday ka tafdheeraatana daarood ismaaciil baa leh iima garsoorayo ninkii ciidanka soo diray ee taladeeda lahaa ee dhibaatada iyo xasuuqeeda ka taliyey ee lahaa war iima garsooraya maanta intuu ii fadhiistay laascaanoodna fadhiistay insha allahna ma dhex fadhiyi doontid baan aaminsanahay garsoor adeerkaa sugi maayo ninkii ku dilay ii garsoor ninka maanta yidhaahda ee ka dhegaystaayey manima guna jirin garaadna lahayn beesha baarasoona waxaan leedahay nabadda sidaad ugu gurguuran jirteen ugu gurguurto war beesha tan aad laysku kiindilayo war waa beeshii aad wada dhalateen asheen kalena tegi maysaan qolana lama gumaadi karo oo dalka lagama safayn karo waad surantihiin intii dhimatay inta nool alloo taliyo beesha silaayo uu horjoogaa u yahay adeer waxa weeye waa beel caqliga xaqii ka indhala oo caqligii ka indhala oo ka dhigala ugeeyey waa xaqa bay ka indhaladahay xaqa bay ka indhaladahay oo ka dhigalaadahay oo ka caqlilaadahay haddii ay jiraan wax xaqa u indha iyo dhiga iyo caqli qabaayay war waxanay ku kacayeen kuma kaceen maanta ma yidhahdeen intay dadkii xasuuqaan ma yidhaahdeen waa ku garsooraya kalshaalatii ka dhacday 400 qof baa lagu dilay oo lagu dhaawac iyo dhibasho ahayd taneex bay ahayd laascaanood bay ahayd 20 nin oo kootarbalaysta oo ku xadgudbay kililka shanaad oo iyana wax dilay iyagiina la dilay sahadeena dad maanta bay jir iyo dhul uga qaylinayeen beeshaysaa oo ay xildhibaankoodii iyo kii madaxweyne ahaa iyo kii maamul ahaa iyo kii isin ahaa aan loo kala harin dhulgariir ay ku samaynayeen dibad iyo gudo war maxay u arki waayeen xasuuqan baahsan ee 24 saac xinjirta ay gacmaha kula jiraan war nin af ku dhiigla oo adib ku dhiigla oo uur ku dhiigla oo ummadii Soomaaliyeed xasuuqeeda ku qaangaaray oo sida haddii ay bayd maayo 24 saac kula jira dhiig gacmaha kula jira xinjir kula jira war sidoo igu qasoora maanta koonfurta Soomaaliya waxay u degi weyday waa wiilashoodii iyo fakarkooda ka degi weyday waxay ka degi weyday Soomaaliya caga u dhigi weyday dawladooda wayaga waxaan leenahay ciidamadooda meesha ku jira in si degdeg ay ugala baxaan baan ugu baaqaynaa iyaga haddii ay doonayaan in arlada nabadi ka dhacdo si degdeg ah ugala baxeen ciidamadooda meesha iyaga xasuuqa wada iyaga dhibaatada wada iyaga haddii bayd maayo xadhigga iyo cagajuglayta iyo caburidaba ku jira waxaan leedahay halka nin xildhibaana oo bishii 6 27keedii 2016 ka hadlayey oo lahaa waan ku jahaalaynaa 20kii dadkii halkaa lagu dilay war 20 qof bay ahaayeene intaasoo kunoo qof baad qaarajisay warmiyada xaqa ka dhagalaay wuxuu yidhi ma malaa'igan darin baa qoraysa duwaanka ma xaqa la dusiyay daa'ir noqon doona ma dambiilayaashoo dhan baa daa'ir la horkeedi ma shaydaanka idin duufsaday baa idinku diiqdiiqan waa cadhow tiilaayaha maanta idin isticmaalayaay waan aakhira nina ka saari maayo shacab wanaagsan baa gobollada dega laakiinse waa shacab ayaan daran oo ka ayaan daran maamulka xaggiisa
waxaan leedahay ummadda dhulbaante ee taladan iskale garsoorkan iskale war hooy waxaa la yidhi saddex baa ilaahay u dacwooday dumarka iyo doofaarka iyo ugaadha u dacwooday baa la ilaahay waxaan kusoo gabagabaynayaa kusoo gaabinayaa taa war doofaarka ilaahay u dacwooda wuxuu yahay ilaahadow intii aad abuuratay baan ugu faalxumahay jannadaad haddana cadaabteeda ii hoos marisay garsoor eexday baan kaa hoos mariyey buu yidhi mar cadaalad xumadii ka dhacday hore u dhacdaysa dib u dhici talada aad leedihiinna nin kale iisan mas-uul ka noqon idinkaa talada leh hadday dhulbaantay ka dafdheeraato daarood baana ismaaciil ninkii ciidanka soo diray adeer garsoor ima geli karo intuu madaxa isoo duubto taana halkaasaan leeyahay tan labaadee kalena waxaan leedahay war dhulbaantow inta gacmaynaysa labadan beelood ay isdilaysa hadduu nin yahay hadduu gruub yahay hadduu jilib yahay dhulbahantaa nin walba wuxuu ka geystay waanu ognay waana qoran tahay nin walba wuxuu ka geystay waanu qoranna way qoran tahay mar baana lagu xisaabtamaya taariikhduna waa sire maxay sayme kugu reebi buu yidhi beero badan ama shakhsiyaad badan bay sayme ku reebi doontaa kii hubka bixinaya iyo ka rasaasta bixinaya iyo ka gaadiidka bixinaya iyo ka hawlaha ku jira intaba waanu ogna labada reer midna dani uguma jirto khayaad iyo baara samay mar labaad waxaan idin leedahay nabadda adeer dhulka dhiga colaada dhulka dhigoo nabadda qaata colaada dhulka dhigoo nabadda qaata cabdi garaadow war nin aan kuu furi doonin yuusan kuu rarin wuu kuu raray mid aan kuu furi doonine war yuusan kuu rarin war tuutaha ku jiri mayno isaaq ku jiri mayno dhulbaantaa tihiin waad isdhasheen waad kalama maaranto mataaca baad tihiin deegaan baad tihiin nabadda qaata baara samayna waxaan leedahay garaadka guud garajaamacow garaadka guud ee dhulbaantaa tahay khayr allaha ku siiya sida aad nabadda ugu baaqday baanu kuugu hambalyaynaynaa khayr cabdi baad ka mas-uul tahay oo garaadkoodii guud tahay baara samana waad u tahay dhulbaantoo dhan baad u tahay soomaaliyaad u tahay nabadda ha la qaato xabadda ha la dhigo caqligu ha shaqeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani iraxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulqaadir ciise oog waxaan rabaa haddii allaha awoodda la ogolaado inaan keligii ragga ku duubo waxaan ka hadlayaa dhowr arrimood oo kala duwan baan ka hadlayaa arrinta koowaad waxa weeye waxaan tacsi u dirayaa garaadkii garaad abshir maxamed oo 27-kii bishan ku geeriyooday waddanka Sweden ilaahay naxariistii janno ha siiyo eeladii iyo qaraabadiina samir iyo iimaan iyo reer khaatumaba waxaan kale oo tacsi u dirayaa dadkii ku dhintay dharkayngeeyo iyo nawaaxigiisa ilaa dhumay oo gacmo ka xaqdaran ay dileen iyo kuwii laascaanood sida xaqdarrada loogu dilay intaba waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo iyagana bil Ramadaan bay dhinteen ilaahay ha u naxariisto naxariista janno ha geeyo inta markaan ka gudbo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa una jeclahay weligeena u ololeyn jiray labada reer ee dagaalamaya in ay nabad ku wada noolaadaan oo nabad ku wada joogaan oo nabad ku wada daaqaan oo waxgaradka labada beelood soo jeeda ay nabad ku dhex joogaan oo ku heshiisiyaan hase yeeshee waxaa muuqata inay intaasi suuragal ahayn sababta in suuragal ahayna waxa weeye dadkii waxgaradka u ahaa labada beelood oo fikradahoodu ay marnaba isu imanayn oo kala duwan yihiin awalla
intii ay wada noolaayeen ama kunkii sano ay wada deganaayeenna dadka waxgaradka bay ku wada deganaayeen hadday aan waxgarad ku midoobin oo arrintaa mid u noqonna haba yaraatee suuragal maaha inay waxa maanta ka socda inay wax ka hagaagaan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo wax badan oo dhulbaantana og yahay bahar samana og tahay qayaadina og tahay inaan maanta halka ka sheego waxaan ka xishoodaa inaan halkan wax ku soo duubo waa ka xishoodaa mana jecli runtii laakiin rag odayaal oo waliba siyaasiyiina ayaa mar kasta waxay soo geliyaan qoraal aan xaqiiqada ka hadlayn oo aan sax ahayn oo aan cadaalad ahayn ayay soo geliyaan aad iyo aadna waan uga xumahay inay taasoo kale inay dhacdo waxgaradkii labada beelood inay sii kala fogeeyaan waan ka xumaa waxaan rabaa waxgaradka ugu horeeya inaan tilmaamo oo aan doonayo inaan si fiican farta ugu fiiqo waxgaradka ugu horeeya waxa weeyaan waa garaadkayga guud weeye garaad jaamac garaad cali garaad jaamac oo dhibaatadaas oo soo noqnoqotay mar kasta aayar ka aamusnaa diiday inuu dadka aayar dhex istaago oo yiraahdo war joojiya colaadda marnaba diiday maalintii dhaweytana argadii ay ku khasabtay oo tiri hadal taawan ka xumay aad baan ugu xumaa waxaan kaloo aad uga xumaa madaxweynahaygii aan saboodayay ee la shaqaynayay ee khaatuma state madaxweynaha u ahaa ee dhulbahanta doortay inuu u garsoori waayo labada reer oo labadaba madaxweyne uu yahay oo oran waayay xataa oran waayay Allahu naxariiso ku dhintay colaadu joojiyay iska daayay oo isaga oo agtiisa ay ugu dhimanayaan uu tacsiidanayo kuwa muqdisho ku dhintay uu tacsiidanayo iyagana uu tacsiidan waayay bil baa ka soo wareegtay markuu hadda tacsiida dirayay oo lahaa waan ka xumahay wixii ku dhintay iyo uu lahaa bil dhan baa ka soo wareegtay garaajaa macna bil dhan baa ka soo wareegtay waxaan rabaa inaan maanta caddeeyo oo sheego waxgaradka ka hadlay oo kamid yahay Axmed Saakin oo si fiican isu garanayno iyo ninka kale la yiraahdo Ali Muuse ee halan kaliya ku soo duubay xaqiiqada kamid no hadlin xaqiiqada haddaad doonaysaan in la sheego anaga sheegayna waanad ka leexatay runtuna waxa weeye dhulbahante isakuma soo duulin oo iskama qabsan dhulbahante waa la keenay wadankeena dhulkeena waa la keenay cidda keentayna waa bahar sama wad garanaysan saax dheer iyo kala bayr iyo dhumay iyo dabataag iyo darkeengeeyo intaba ciidamadii yimid waxa keenay bahar sama ina xabsaday iyo dhakool baa keenay kuwa darkeengeeyo jooga dhakool baa keenay iyo xabsaday waxa lagu haysto oo yaana markasta qayaad loo leeyahay ama reerka la yiraahdo khayr cabdi loo leeyahay waa Somaliland reerka bahar sama la yiraahdo Somaliland cid kaga badan ma jirto saraakiil bay ku leeyihiin askar bay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin waa ganacsato waaweyn bay ku leeyihiin way yaanaha cid kaga badan oo dhulbahanta ah ma jirto cid kaga badan ma jirto waan ogolahay hubba la isugu dhiibaya bahar sama la siinaya oo khayr cabdi la siinaya intaba waa ogolahay oo way siinayaan iyagu cadow waa siinaya laakiin yaa sabab ah yaa keenay xagee ka yimaadeen waa kuwa cidda mas'uulka ay waayo dhulbahanta mas'uulka bahar sama mas'uulka qayaada mas'uulka arinta waxaan jeclahay in wax laga bedelo oo loo bedelo sidii wanaag ku imanayo in loo bedelo qodobka ay odayaashana ka hadleen ay yiraahdeen garaadka la shaqoolayay anagu garaadka ma shaqooleyn wax shaqoolayana ma maqal mana doonayno inaanu garaad dilo
sida garaadka loo dilana ma naqaan cidda taqaana garaadada si loo dilo iyagu ha sheegeen laakiin annagu ma dilo garaadada mana doonayno inaanu dilo taas baan halkaas ka cadeynaya wax garaadano shirqooleynayna ma jirto wax ma garanaysaa aanu doonayno inaanu dhulbaxanta lid ku ah aanu doonayno ma jirto wanaaga dhulbaxantaanu jecelahay bahar sameena wada noolaanaan jecelahay 3 jeer 4 jeer baa dhaqangeeyo iyo dhibaato ka dhacday cidda mas'uulka ka ahayd waa la garanaya waxyaalaha aanu qarinayno aanan ka hadlayn bay kamid tahay oo leenahay labada reer dab ha ku sii horinino ha sheegin 3 jeer bahar sameena mas'uulka ahayd wixii meesha ka dhacayaga bilaabay بالفدنو ولا بلاوي مركي لا بلاوانا وحي دعاده وحي بلاوي با مسؤولك وين عده صدح جيرو مرخاتيال بيلاده maalintii ugu dambeysay iyaga bilaabay tii ku xigtay iyada bilaabay tii ku xigtay iyaga ayaa bilaabay oo intay saxdeerka ciidanka soo kaxaysteen oo tigno ku soo weeran ringeeyay rag iska hurdo gurigooda hurdo ku laayeen bahashi ku laayeen tigidka ku laayeen oo meedkooda inta jiiteen oo geysteen dooxada geysteen ay sawirteen oo yiraahdeen anaga dilay war xaq ilaahay miyana ka baqayn war ilaahayna abuurtamiyana ka baqayn war miyana muslim ahayn joojiye propagandada iyo waxa la wareegaysan dhulbaanta laga dhaadhicinayo war dhulbaanta waa ogyahay waxa meesha ka socda waa ogyahay war garaadkii guud baa noqonaya madaxweynihii baa noqonaya dhulbaantana waa laynaya aqli maaha waxaan ogol lahay oo yeelayna maaha wax la qaadan karana maaha waxaan hadalkay ku soo koobaya nabad laga shaqeeyo labada reer gidaar loo dhaxaysiin kari maayo gidaar inta loo dhaxaysiyo kala guuri maayaan oo qolaba gidnac ka deganaan mayso qolana laga tirtiri maayo meesha ka dhamaan maayaan waxaan codsanayaa in laga shaqeeyo nabad waxaan codsanayaa in aynu ka dayno waxa fidnada laga shaqeynayo oo la doonayo in labada reer lagu kala dilo hal joojiyo dhulbahantow ha ka aamusina arrinta tan soo dhaxgala oo ka hadla oo waxa weeye annagu dhulbaanta wuxuu yahay baan nahay dhulbaanta haduu gob noqdo gob baa noqonayna haduu ku noqdo waa gumoobina laakiin cid kale wax naga dhigi karta anaga ma jirto waana ogol lahay waa ku go'na waa ku qarirana intaas baan ku soo gabagabeynaya hadalkayga cidda uu dhibayay raali ka ahaad cidda uu dhibayo raali ka ahaadeen laakiin xaqiiqada dhabta ee aan ka hadlayo taas weeye intaas baan ku soo gabagabeynaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh